madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku qaabilay wufuud caalami ah oo ka socda dalalka reer Yurub ee xiriirka dawlo leh jamhuuriyadda Soomaaliland ee had iyo gooraale taageerada dhaqaale u fidiya sidii shacbiga reer Soomaaliland ay horumar u gaari lahaayeen kulanka laba geesoodka dhaxmaray madaxweyne Biixi iyo wakiilada ka socda dalalka UK, Sweden, Denmark, Switzerland, Holland, Norway oo ay hogaaminaysa safiirka Soomaaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan midowga reer Yurub waxa diiradda lagu saaray intii uu socday mashaariicda horumarineed ee waxbarashada caafimaadka biyaha iyo dhismaha wadada berbera ee berbera corridor ee ay Soomaaliland dalalkani ka caawiyaan iyo mashaariicda kale ee ka socda dalka ee ay dalalkani Soomaaliland ka hirgeliyeen intii ay xidhiidhka la lahaayeen waxaanay ballan qaadeen diblomaasiyiintan iyo safiiradani inay sii xoojin doonaan kaalmooyinkii ay Soomaaliland ka caawin jireen iyo wada shaqayntii ay la lahaayeen xukuumadda Soomaaliland waxa kale oo madaxweynaha cusub ee la doortay ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay kala hadleen diblomaasiyiinta reer Yurub sidii loo horumarin lahaa wada hadalladii u dhaxeeyay dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya sidii horumar iyo guule wax ku ool ah looga gaari lahaa waxaanay iftiimiyeen inay xoog saari doonaan sidii ay shacbiga reer Soomaaliland uga caawin lahaayeen mashaariic wax ku ool ah oo noloshooda wax ka bedesha iyagoo iftiimiyay inay wax weyn ka qaban doonaan qorshayaasha horumarineed ee xukuumadda Biixi ay u soo gudbisay dalalkooda safiiradan ayaa madaxweynaha la doortay ee Muuse Biixi Cabdi u siday hambali ay uga sidaan dalalkoodii taasoo muujinaysa taageerada ay dalalka reer Yurub u hayaan Soomaaliland oo dalalka jaarkeeda kaga horumartay hirgelinta dimuqraadiyadda iyo asxaabta xorta oo Soomaaliland lagu majeerto madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sharaxay wada shaqaynta buuxda ee Soomaaliland ay la leedahay dalalka reer Yurub iyo sida ay iskaga kaashadaan horumarka dalkan iyo xiriirka uu la leeyahay dalalka qaaradda Yurub haddii ay noqoto dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo wada shaqaynta iyadoo wufuudani ay ka mid ahaayeen xubnaha goobjoogayaal caalami ah oo ka qayb galaya munaasabadda maalinta berri looga ballansan yahay inay ka qabsoonto caasimadda Hargeysa ee xilka ay kula kala wareegayaan madaxweynaha talada ka sii degaya ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo qarankan hogaaminayay 7 sano ee u dambeysay iyo madaxweynaha ay codka aqlabiyadda ku doorteen shacbiga reer Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa